Hello, Assalamu alaikum waraxmatullaahi wabarakaatu. Asxaabtayda YouTube waan idin salaamay meel kasta oo aad joogtid. Caqli ayaan idin kordhinayaa si uu dhibkaagu problem kasta oo kugu yimaada aad si fudud ugu xalliso. Ayaan kuu sheegaya od problem kasta oo nolosha kugu yimaado 95% intaan wad ama xanuun dee aan la kansgaran karin la joojin karin sidaad xal ugu heshaan kuu sheegaya ee si fiican ii dhegayso. 5 nin ayaa isa soo raacday. Roob baa ku daay, waxay yimaadeen, waxay ku jireen, waxay soo aadeen meel bay u socdeen, waxayna dhex marayeen meel duur ah. Roob ayaa ku daay. Roob baa maalintii oo dhan hayay. Roob maalintii oo dhan markuu hayay ayay qaboobe xubaar bay socdeen geed hoostiisay galeen. Roobkii baa joogsaday. Geedkii hoostiisa bay ka soo bixeen. Waxay wareereen jahaday u socdeen ayay ku wareereen. Way diyoobeen. Roobku dadka markuu ka bato qabowgu ka bato way diyoobeen. 5 nin baa la istaagay. Markaasaa la yiri war xageed u malaynaysaa jahadaynu u soconay inay naga jirto. Mid baa wuxuu yiri halkan noorad bay naga jirtaa. Midna wuxuu yiri koonfur bay naga jirtaa. Midna waqooyi bay naga jirtaa. Midna bari bay naga jirtaa. Midna galbeed bay naga jirtaa. Kii u dambeeyaa wuxuu ku yiri war bal isuga aan hubsano inaan iska dhaqaaqin aan hubsano. Muran bay dhaliyeenoo waxay ku murmeen maya anaa saxan noorad baan aadayna may galbeed bay naga jirtaa oo anaa saxan. 4 nin muran bay qaateen oo kii shanaad baa yiri war lu kaadiyo aniga iga warsuga. war kuma korsugayna nala dhaaf baa lagu yiri adigu aqliba ma qabtid. Ninba jahadiisii ayuu aaday. 5 nin ee isla socotay 4 nin ee kale ninkii halkii taagan ayay ka kala dhaqaaqeen oo midna bari aaday, midna waqooyi aaday, midna galbeed aaday, midna koonfur aaday. ninkii shib buu yiri agtiisuu fiirfiiriyey geed dheer buu arkay oo la kori karo. geedkii dheeraa buu koray. geedkii dheeraa markuu koray buu horta wuxuu arkay cawskani isqar'aan bushkan iyo meeshan hulkan geedaha badan lay ku jiraan meesha uu ku dhammaanaya arka. geedkii buu kor usii koray. wuxuu arkay tuuladii u socday aqalladoodii yaa meel kore uga badhaamo. wuu 2 jeer hubsaday. tuuladii u socdeen ayaa u bidhaantay oo meel fog uga bidhaantay. markii uu xaqiiqsaday bushkan ama meeshan hirkan geedaha badan lagu dhex jiro hirkan geedaha badan ku dhex jiro inta uu jiro na wuu hubsaday. iyo halka uga baxayo magaalada qiblada ay ka jirtaan wuu hubsaday. halkii buu ku dhaqaaqay. sidii ayuu ku tegay. si fudud iyo waqti yaroo gaaban ayuu ku tegay halka uu socday. maxaad ka fahamteen sheekadaha? 4 nin oo kalena midba meel qaldan ayay u kala laaceen. fudayd iyagoon waxba hubsanin ayay kala yaaceen. haddaba problem kasta markuu kugu yimaado waxa dadka dila oo ugu daran markuu dhib kugu yimaado waa reactionka aad ka samayso ama sida aad uga naxdo ama sida aad uga falceliso ayaa problemka ka badan kuu disha. oo markay waxaynu ku dhacaan haddaynu Soomaali nahay wax ma hubsano wixii baynu wax weyn u aragnaa. wax kasta oo kugu yimaada waxaad xallin kartaa marka aad hubsato problemku waxa uu yahay. laakiin sida u badan inagoon ogsoonaan dhibku intuu la egyahay ama problemku inta uu la egyahay ayaa xanaaqa iyo tambarkii Soomaalinimo inaga tambadiya. markaasaynu isku dhex yaacnaa. markaasaynu qaladkaynu ka sheeganayna mid ka weyn sii galnaa. markaasaynu nafteena murugo iyo warwar iyo fakar iyo waxaan meesha oolin ku furna. dabeetana problemkii ayaanu sii weynaynaa. problemku waa dabkoo kale. dab haddaad rabto inuu weynaado qoryaa lagu shidaa. problemka waxaa lagu soo afjari karaa in aad meeshiisa ku damiso oo aad meeshiisa ku xalliso. please sometimes anigu arrimaha noloshayda ila soo gudba qof bini aadmi oo weliba reer weyna baana many times waan aamusaa kama hadlo arrinta
markaan arko problemka kama hadlo, waan aamusaa, shib baan idhaahdaa, afkaan xirtaa. sidaan afka u xiranayo oon u aamusnahay ayaan wixii xaqiiqsadaa wuxuu waxay ahaayeen. markaan wixii hubsado waxa ay yihiin iyo dhibkan iyo problemkan meeshu ka yimid ayaan isku dayaa anoon reactionkaygii dhib kale kusii darin, qaylin, dad kala maagin, balaayo isku furin, tarabal isku furin, ayaan waxaan sameeyaa isku dayaa oo cidi u ogaan, oonan taleefon qaadan, oonan cidna wicin, oonan cidna u yeedhin, tartiibkayga caruurtayda xataa waxyaaba badan oonan la wadaagin oona uga sheekayn baa jirto. shib intaan iska iraahdo oo problemka dhibku wuxuu yahay aan hubsado, markaan dhibku meeshuu ka yimid waxa uu yahay aan hubsado, ayaan haddana be careful sidii dhibkaas sida ugu fudud oo ugu dhaqsadana ugu fudud oon u xallin lahaa aan u xalliyaa. sometimes problem badan waxaan ku xalliyaa inaan ka aamuso oonan u jawaab. shib inaanan reaction samayn, inaanan u jawaabin, afkayga aan ka xirto, shib u iraahdaa. of course waxyaaba aan laga aamusi karin baa jira oo dhib weyna, but in a same time 99% the problemka waxaad ku xallin kartaa inaad wax hubsato, inaad wax ka fiirsato, inaad first adoon fahmin dhibku xaggee kaaga yimid, dhibku intee la eg yahay. dhib markaad aragto haddaad qayliso xooggii iyo enerjigaad dhibka ku xallin lahayd, dhib kalaad isagoo sii furaysaa, adigabaa iswaalaysa. qofku hadduu asagii qayliyo, asagii waasho, asagii wareero, asagii isku dhexyaaco, dhib ma xallin karo. marka bulshada soomaaliyeeday hubso in aad tartiib. midda kale haddii aan wax walba ka qaylino waxaa lagu leeyahay waa kii mar walba balaayu sheegaya ayaa lagu leeyahay. soo ma garanin. waxaa kale oo aan rabaa inaan kuu sheego, waxaa jira bini aadmiga in badan caruur baa wada dhigata high schools, caruur badan baana aniga high school iyo wada aad. qaar problem, dagaal, dacwo mar walba yaa ku furnay. qaarna inay iskuul aadeen iyo high school inay dhiganayaan iyo elementary inay dhiganayaan lama kala garanayn. you know why? qofku waxa uu doorto iyo waxa uu raadiyo ayuu sida u badan helaa. qofka asagu markuu 24/7 dhib raadiyo, problem raadiyo, dadka aad la socoto, haddaad la socoto dad negative ah ood attracted ku noqoto oo aad jeclaato dadka shidada ka samaysan, balaayada ka samaysan, isku dirka ka samaysan, dagaal iyo violence ka samaysan, dhib un ku socda, haddii aad la saaxiibto adiguna iyagaad ka mid noqonaysaa. adiguna dhibka iyo problemka iyo buuqa iyo isdaba orodka iyo isdaba yaaca iyo isjidjiidashada dhinac ka gelaysaa. qof kasta qof uu la saaxiibo ama qof ula sheekaysto oo uu iswaraystaan uu ku nafisa uu u baahan yahay. laakiin please choose qof wanaagsan oo saaxiib la noqoto. familigaaga qaar badan dadku markii la koro xataa walaalaha wada dhashay isku dabeecad maaha. dadka qaar fara badan ninba choice wuxuu dooranayaa isku dariiq. walaalaha intii oldow la wada dhashay, intii isku dabeecad iyo dhaqan iyo isku fikradii way israacdaa, intii isku fikradeenna way israacdaa. qofko kastoo marka isku day. sometimes adduunka anuu waxaan u jeclaaya aamusnaanta. median waan ka hadlaa, dad badan baan u afadkeed gareeya, dhib badan baan ka hadlaa, waxyaaba jiraan ka hadlaa, dadkan ka waaniyaa wixii barritoole noloshooda baabi'in lahaa. inta aadan falin ka fiirso. sometimes waxaan ugu jeedaa silence, aamus. qofka wuxuu yiri Steve Harvey, ninka la yiraahdee komediyaanka ama maraykanka ah ee odayga madowga ah, wuxuu yiri joornaalka haddii magasiinada maraykanka dadka lagu dacaayadeeyaa Hollywoodka, wuxuu yiri haddii laygu soo qoro article ka mida laygu soo qaato waa arkaa buu yiri kama hadlo.
haddii aan ka hadlo niyuus weyn bay noqonaysaa buu yidhi, idaacadoo dhan baa wada qaadanaya. marka waa arkaa waxay iga sheegayaan, waa arkaa inay been tahay, waa ka aamusaa. adiga naftaada wax badan ood og tahay in been lagaa sheegayo, in lagu dhibayo, in lagu ayaa la rabaa inaad ka aamusto. qofku dadka qaar badani iyagaa qalbiga ka jira, iyagaa qalbiga ka xanuunsan, iyagaan isku kalsoonayn, iyagaan maxay ahayto iimaankoodii cibaadadooda wanaagsanayn. waxay rabaan adigana inay barta ay taagan yihiin inay ku geeyaan, sida ay dareemayaan bay adiga kugu tilmaamayaan, adiga kugu caynayaan, adiga kugu dhibaataynayaan. dadka qaar baa financial problem, dhaqaalahaaga un inay dhaqaalo keen kugu wareeriyaan, iyagoo eelnimo isticmaalayo, kugu noqonayo warwar iyo cudur. waxaasoo idil waxaa kaaga filan now. afkaaga adaa leh inaad xirato, gacmahaaga adaa leh inaad xirato, lugahaaga adaa leh meelaan lagugu rabin inaadan ku tegin. kaas ayaan kugula talinaya. waxa weeyaan dhalinyarada soomaaliyeed ama bulshada soomaaliyeed, hadal wuxuu ammaanadaada yahay intuu afkaaga ku jiro. wax hubso, wax ka fiirso. dadka bini aadmiga stresska iyo depressionka iyo isku buuqa iyo isla hadalka waxa u geysta ugu daran qofku qiimihiisa la garanayn. haddaanan anigu isqiimayn, qof i qiimaynayaa ma jirto. haddaanan anigu qiimaha alla isiiya aanan garanaynin, qof qiimaynayaa ma jirto. iska dhaaf aan bini aadmiga kale, haddaanan anigu naftayda isqiimayn, caruurtaan anigu dhalay ima qiimaynayso. waxay ii soo arkaysa haddaanan anigu naftayda jeclayn, qiimaha naftayda garanaynin, ilmahan anigu dhalay ima qiimaynaya. iska dhaaf bini aadmi kale korkaaga yimaada. ninka ku qabaan qiimaynayn, ehelkaagaan ku qiimayn. qofku isagu markuu qiimihiisa garto oo uu isqiimeeyo, oo naftan ilaahay siiyey iyo waqtiga yar uu haysto, uu ogyahay inuu waqtiguna dhammaanayo, naftuna dhammaanayso. waqtigaa yareed haysatid inaad nolol dhib yaraana ku noolaato, inaad nolol farxada ku dhoolaato, inaad isku tashato, ood wax dhaqaalaysato, oo aad shaqaysato, oo aad isku daydo inaad bini aadmi baryadiisa aad ka baxdo. tuugma aadani tuur bay ku yeeshtaa. qof baryo tamaya oo gacan maran ceebtiisu ma asturan. meel baa laga bilaabaa, waxaana laysku dayaa qofku wuxuu qalbiga gashto inuu gaaro wuu gaaraa. believe me, qalbiga qofku wuxuu gashto inuu gaaro ayuu gaaraa. waxaad qalbiga gashato inaad noqoto, waad ficil ku darto, go-aaninta ku gaarto, aad ku dhaqaaqdo, ama waqti dhow ha kugu qaadato ama waqti dheer ha kugu qaadato, waxay u badan tahay 100%, 99% inaad gaarayso. why? because ilaahay baad haysataa. adduunkan dhan ilaahay baa iskale. qof walba asoo qaawan buu yimid, asoo qaawan buu dhex ka tagaa. wax kastoo adduunka yaallo adiga kugu adag, ilaahay baa iskale. ilaahay asagaa adiga ku abuuray, adduunka isagaa ku keenay, isagaa ku irsaaqa. aayad qur-aan kugu leeyahay ilaahay bari, waxaad rabtay u warso, anaa ku hayo ku siinaya. taas haddaad aaminto ood ilaahay inaad haysato, ood wax walbana kuu suurtagelayaan aad maskaxdaada geliso, waad gaaraysaa. baro inaad aamusto, baro problemka inaad taadan xalka ku boodin. problemku wuxuu yahay 3-4 jeer inaad ku celceliso, oo aad hubsato, oo aad isdejiso, oo dhibkani halkuu ka yimid iyo intuu la egyahay aad ogaato. marka aad ogaato kadib tartiib bikaraful xalka raad. inaad adoon waxubsan dhib markaad aragto qayliso, ood ilmahaaga ku qaylisood, ninkaaga ku qaylisood, dadka wixii ka dhexeeyaan ku qaylisood, qayliso. waxaa kaaga fiican silence killer. dadka waa loo aamusaa. qofka kugu dhiba hadalkiisa, ama ku caaya, ama ku xumeeya, ama wuxuu yahay xumaan ku tusa inuu cadow ku yahay, aamuskaa lagu dila. afdaboolandah. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. khayr badan baa idin rajeynaya.